bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan baa khiyaartana dhegaysanaysaay halkani waa dhexnimo media.com kuna soo dhawaada barnaamijkeennii ka faa'iid oo aynu toddobaadkana ku soo qaadan doono faa'iidada uu leeyahay lowsku toddobaadkii kan ka horreeyay waxaynu ku soo qaadanay 6 faa'iido oo ay leedahay sinjibiishu toddobaadkana waxaynu ku soo qaadan doonaa faa'iidada uu leeyahay cunista lowsku wargeyska time.com oo ka soo baxa dalkaasi Mareykanka ayaa daabacay warbixin iyo daraasad dheer oo lagu sameeyay faa'iidada uu caafimaadka u leeyahay lowska daraasadan oo qaadatay muddo dheer oo laga sameeyay lowska ayaa waxa laga ogaaday inuu dadka mar walba cuna lowska inay ka caafimaad badan yihiin kuwa aan lowska cunin daraasadan oo ay sameeyeen koox caalami ah oo lagu daabacay BMC Medicine ayaa waxa lagu sheegay in lowsku yareeyo cudurrada ku dhaca wadnaha kansarka iyo waliba sonkorowga ama kaadi macaanka 29 daraasad ah oo laga sameeyay lowska lana weydiiyay 800 oo ruux ayaa waxa la sheegay in 30% uu yareeyo cudurka wadnaha 15% uu yareeyo kansarka halista ah 40% ayaa lagu warramayaa inuu cunista lowsku uu hoos u dhigo cudurka ay Soomaalidu u taqaano kaadi macaanka qof walba waxa uu wanaagsan inuu maalintii ugu badnaan 20 gram oo midhaha lowska ah uu cuno ayay daraasadan lagu sheegay waraysi lala yeeshay in ka badan 800 oo qof oo aadka u cuna midhaha lowska ayaa waxa lagu dareemayay caafimaad iyo inay ka caafimaad qabaan kuwa aan cunin lowska haddaba daraasadan ayaa inoo cadeynaysaa faa'iidada ay leedahay midhaha lowska oo ah kuwa dabiici ah oo isla mar ahaantaana ka baxa meelo fara badan oo ka mid ah dhulka ay Soomaalidu degto inta badan barnaamijkeena dhageystayaal waxaynu ku soo qaadanay faa'iidooyinka ay leedahay cuntooyinka dabiiciga ah balse waxaynu ka eegi doonaa dhinacyo kale oo fara badan intaynu toddobaadkan ka xiga ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo